bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa xanta wararka. fadlan ka mid noqo oo ku biiro la wadaag saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono. waxaa ka mid noqon doona wasiirka dhawaangalka ah ee arrimaha gudaha ee Puntland Cabdifaarax Juuxa waxa uu wajigabax kala kulmay qorshe uu tagay Gaalkacyo. waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinta la xidhiidha dani kuma darsan karo wixii muddo kororsigu sababay waa la ogaa. wasiir Juuxa hadalkaas ayuu sheegay miyay isqoonsan doonaan isaga iyo Saciid Cabdilaahi Deni. waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinta ku gadaaman oo barnaamijkan ku falanqeyn doono. mid ka mid ah dadkii sida weyn u diidanaa muddo kororsiimaha ee Saciid Cabdilaahi Deni uu dhawaan uu magacaabay wasiirkiisa arrimaha gudaha. tallaabadaasi waxay ka dhigan tahay waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinta ku gadaaman iyo Soomaaliya oo Turkiga kaga dayanaysa cirib tirka fikirka argagixisada. qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan. soo dhawaada ku biira ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan. Juuxa waxa uu wajigabax kala kulmay qorshe uu tagay Gaalkacyo. wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdifaarax Saciid Juuxa ayaa wajigabax kala kulmay olole iyo kulan uu tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. sida aynu ogaanayno, Juuxa ayaa madashan u qaban qaabiyay si ay wax garadka iyo odayaashan u taageeraan barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee lagu murunsan yahay. hase ahaatee dharbaaxa ayuu la kulmay wasiirka. badi odayaasha iyo waxgaradku way iska diideen inay taagaan kulanka. taasi beddelkeeda waxay kulanka ka sheegeen in barnaamijka uusan isku toosnayn, sidaas daraaddeedna ayaan taageeri karin, ayuu yidhi qof xog ogaal ah oo ku dhow arrimahani. tani waxay kalifaysaa in kulanku lagu camiro shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo dhalinyaro kale oo laga soo xulay magaalada, sidoo xoguhu ay noo sheegayaan. xukuumaddu hogaamiye Saciid Cabdilaahi Deni ee muddaxileedkeeda ugu haray bilooyinka ayaa maalmihii la soo dhaafay dardargelisay ololaha ay taageeraha ugu goobayso hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee madmadowga hareeyay. ururada siyaasadda iyo daneeyaasha Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweyne Deni inuu ololahan doonayo inuu ku hoos fuliyo damaca muddo kororsi, taasi oo baalmarsan dastuurka ayna keeni karto xasilooni darro siyaasadeed. guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland oo u xilsaaran hirgelinta barnaamijkan ayaa dhankiisa wuxuu wajahayaa didmo shacab, maadaama deegaano badan laga soo eryay howlwadeenno u tagay qiimeynta seejooyinka, qaar kalena cabsi amni u tagi waayay. wakiilada beesha caalamka ee dhowaan tagay Garowe ayaa uga digay Deni isku day kasta uu ku doonayo inuu hanaan aan lagu heshin ku fuliyo barnaamijkan, waxaanay kula taliyeen inuu talada ku soo daro dhammaan saamileyda. nidaamka qof iyo codka ah ayaa Puntland ku taamaysay inay dhaqangeliso tan iyo markii la aasaasay. hase ahaatee xukuumadihii talada iskaga kala dambeeyey waxay mid walba soo gaarsiisay meeli. marka laga soo tago mabaadi'da kale, isla ogol ayaa mar walba ahaa tiirka koowaad ee lama taataanka ahaa iyo in siyaasiyiintu ay tala midaysan ku riixaan sidii mandiqadda ay uga gudbi lahayd hanaanka qabiilka ku salaysan ee haatan looga dhaqmo. Puntland waxay wajahaysaa diidmooyinka muddo kororsiimaha iyo doorashooyinku. si kastoo xaaladda noqoto, dhowaan ayay ahayd markii ay markaasi bilaabatay in waddada loo galo guddidii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka ee Puntland, kuwaasi oo laga qaatay qalab iyo gaadiidda. taasi oo ahayd dhacdo ugub ah oo ay markaasi wajaheen Saciid Cabdilaahi Deni iyo guddidaasi iyagu riixayay doorashooyinka qof iyo codka ah. xubnahan gadoodka ah ayaa kolkaasi ku dhawaaqay inay yihiin badbaadada Puntland. waxay arrintaasi noqotay mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Puntland. dhinaca kale, Cabdifaarax Juuxa waxa uu leeyahay Deni muddo kororsiimo ma samaysan karayo, cidna ka aqbali mayso oo wuxuu uu sababay muddo kororsiimo waa la ogyahay. wasiirka arrimaha gudaha Cabdifaarax Juuxa ayaa sheegaya inaysan marnaba macquul ahayn in madaxweyne Saciid Deni uu muddo kororsiimo samaysto
wasiir Juxa oo ka qaybgalayay kulan laga taageerayay hanaanka dimuqraadiyadda oo ka dhacay Gaalkacyo ayaa xusay in Saciid Deni uu horay u cadeeyay inuusan jiri doonin muddo kororsiimo uu samaysto marka muddo xileedkiisu dhamaado aysan ka suurtageli karin Puntland. dhibaatada muddo kororsigu leeyahay ayuu sheegay in Puntland horay u soo aragtay, waxaana uu intaa ku daray in doorashooyinka qof iyo codka ah aan lagu lamaanin karinin in muddo xileedka dawladda la kordhiyo. shacabka Puntland ayuu ugu baaqay taageerada doorashooyinka dadweynaha ee golayaasha deegaanku si ay codadkooda ugu soo doortaan xubnaha ku metelaya maamulka heer degmo. wasiir Cabdi Faarax Juxa oo ku sugan Gaalkacyo ayaa kulamo la leh qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Mudug, kuwaasi oo ka gadayo hanaanka doorashooyinka qof iyo codka ah. tan iyo markii la magacaabay wasiir Juxa, deegaanada Puntland ayaa waxaa ka bilowday oo ay dhalinyaradu hormuud u yihiin, kuwaasi oo lagu muujinayo muhiimadda barnaamijka dimuqraadiyeynta ee uu leeyahay Puntland. sidoo kale doodo badan oo ay qabaan siyaasiyiinta Puntland ayaa hareeyay hanaanka qof iyo codka. madaxweynayaashii hore ee Puntland ayaana si adag uga hor yimid, iyagoo ku eedeeyay Saciid Deni ga jooga hadda Villa Garowe inuu ku dhex qorsheynayo barnaamijkan muddo kororsi uu samaysto. Deni waxay kala tageen Aranjan, kooxdii dhistay saamilada siyaasadeed. xubnihii iyaga hoos ka abaabulayay talada maamulkaasi Puntland ayaa noqday kuwa iyagu markaasi ay kala tagaan Saciid Cabdilaahi Deni dhawaan ka gadaal Saciid markii isagoo aan u sheegin saaxiibadiisii waqtiga iyo lacagta geliyay inuu aadayo federaalku uu aaday. taasi waxay dhaxal siisay in markaasi inay ka qayb qaataan fashilintiisa. waxaa la warinayaa Saciid oo isku haystay codadka Jubbaland iyo Puntland intooda badan uu aaday federaalka habeenkii 15 May ee teenada Avazioni, taasina ay keentay in wareegii koowaad uu helo 15 cod. waxaa la sheegaa in Aranjan ay lacag badan bixiyeen isla habeenkaasi, xubno badan oo baarlamaan ahna oo Puntland ahna ay garabkiisa ka bixiyeen, maadaama ay u sheegeen baarlamaanku inay soo baxeen lacagtoodana qaataan Saciidna meesha dhaafiyaan. Aranjan waa ganacsato midowday, sidoo kalena saami xoogan ku haysta Puntland. Saciid Cabdilaahi Denina markaasi iyagu ka caawiyay doorashadii 2019 ku soo fuulay Puntland. kala tagoodaasi ayaa noqday mid markaasi Saciid uu isku dayay inuu soo celiyo, isagoo Addis Ababa kula kulmay xubnaha Aranjan mas'uuliyiintooda sarsare. laakiin heshiis hoosaad dhacay Aranjan iyo Deni is-aaminaadii ayaa kala idlaatay, waxaana uu keenay Saciid Cabdilaahi Deni inuu eriyo Xasan Shire Abgaal, mid ka mid ah lafdhabartii Aranjan. Soomaaliya waxay daydaysaa inay wax ka barato khibradda Turkiga ee dhanka warbaahinta si ay si wanaagsan ula dagaalanto Al-Shabaab iyo fikirka argagixisada, sida uu sheegay mas'uul sare. Daawud Aweys Jaamac, wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, ayaa sheegaya in xukuumaddu ay dhowr jiho kala dagaalamayso maleeshiyada waqti xaadirkan. waxaan leenahay horu socod military oo aan ku sameynayno xoogaa horumar ah, kadibna waxaa jira weji dhaqaale oo aan isku dayayno inaan xakameeyno, ayuu u sheegay wakaaladda Anadolu ee Istanbul. magaalada Istanbul waxa uu kaga qayb galay shirkii 12aad ee wasiirada warfaafinta ururada iskaashiga Islaamka ee IOC, kaasi oo la soo gabagabeeyay Sabtidii shalay. wejiga ugu dambeeya oo aad muhiim u ah wuxuu ku saabsan yahay fikradda, waana in la faafiyo iyadoo la adeegsanayo habab isgaarsiineed, ayuu yiri Aweys oo sidoo kale kulan la qaatay agaasimaha isgaarsiinta Turkiga Fahrettin Altum. isagoo hadalkiisa sii wata, wasiirka ayaa wuxuu xusay, waxaan ka wada hadalnay sidii labada dal ay u wada shaqeyn lahaayeen qaybta macluumaadka. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dawladdiisu ay ku wajahayso gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, dagaal 3 afle ah, dhanka ciidamada, dhaqaalaha, caqiidada. si loo fuliyo arrintan, dawladdu ayaa mamnuucday faafinta dacaayadaha ururkaasi iyo bogog uu ku baahinayay dacaayadahaasi
iyo warbaahintooda maalgelinta iyo bixinta lacagaha baadda ah ee ururkaasi si la mid ah howlgallada oo militariga oo la kordhiyey. kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxay waday ama ka waday Soomaaliya weerar lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM dadyo rayid ah. weeraradaasi waxaa ka mid ahaa qarax xasuuq ahaa oo dad rayid ah inta la soo dhaxgalay la isku qarxiyay kaasi oo 2017 ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay ku dhinteen dad markaasi ku dhow ama ka badan 600 oo qof ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 1000 kale 2 isbuuc ka hor ayaana lagu xusay waxaana uu ahaa weerarkii markaasi ka dhacay qaraxaasi oo ka dhacay Soobe isgoos mashquul badan xilli dadku ay kala hooyanayeen taasi oo sababtay in musiibo iyo xasuuq balaaran halkaasi uu ka dhaco taasi oo si weyn markaasi bulshada Soomaaliyeed u xusaan una xasuustaan. halkan waa xanta wararka waxaan idin dhaafnaa sida ay nabad diino amaana Allah daawadayaal saaxiibayaal.